Asalaamu calaykum. Soo dhawaada dhammaan ardayda qaaliga ah ee wax ka barata Aqoon Bil Institute Brave of Language. Welcome back. Today we're gonna explain our new lesson, Basic English Grammar. So follow me and listen to me carefully. Thank you. Soo dhawaada arday, waxaanu qaadan doonaa casharada English Basic Grammar. Markaas la socod wanaagsan. Grammar. What is grammar? Waa maxay grammarku? It's the rule of any language or is the structure of any language. Grammarku is the rule waa sharciga of any languages ee luqad kasta leh or ama structure dhexaadka of any language ee luqad kasta leh. Waa maxay grammarku? It's the rule waa sharciga of any language ee luqad kasta leh or ama the structure dhexaadka of any language ee luqad kasta leh. Grammarku waa ka. Okay. Haddii aynu isla ogaanay grammarku wuxuu yahay, waxaynu u gudbi doonaa pronoun. Ereyga pronoun haddii aynu macnayno waa magacuyaal. Magacyaalku waxa uu gelayaa oo uu buuxin karaa boostka magaca. oo aniga oon qofka magaciisa aan sheegin ayaan isaga tilmaami karaa. oo tusaale ahaan qofka magaciisu haddii uu yahay Axmed, anigoon magaca Axmed isticmaalin baa waxaan isticmaali karaa pronoun oo wuxuu noqonayaa he oo isaga ah. Isagu waa arday wanaagsan. Marka sifo wanaag ah ayaan sheegay waana tilmaamay isagii. Marka pronounku wuxuu noqonayaa un isaga. Waa magacuyaal. In English marka la joogo waxaa jira 7 pronouns, 7 magacuyaal baa jira, and they are waxayna kala yihiin number 1 I, 2 you, 3 we, 4 they, 5 he, she, it. Marka I maxay noqonaysaa? Aniga, you, adiga, we, inaga, they, iyaga, he, isaga, she, iyada, it waa shay amba xayawaan, thing amba animal, labadaasa loo isticmaali doonaa. Marka 7 pronoun baa jira. oo ereyga you ayaa wuxuu leeyahay 2 micno oo kala ah adiga iyo idinka. Okay, waan sii socon doonaa casharkeenan ku sii socon doonaa. Okay, waxaanu geli doonaa verb to be. What is verb to be? Verb to be muxuu yahay marka? It's a word waa erey describe qeexa what the subject is. waxa uu ficil sameeyo yahay uu qeexa. And they are waxayna u kala baxaan and they are divided waxayna u qaybsamaan into 3 qaybood. Waa maxay ardaygu verb to be? It's a word waa erey describe qeexa what the subject is waxa uu ficil sameeyo yahay. And they are divided waxayna u qaybsamaan into 3 qaybood. Okay, maxay tahay qaybta koowaad? waa present verb to be. waa present verb. oo present verb muxuu yahay? waa is, am, are. Number 2 waa past verb to be. past verb to be muxuu yahay? was and were ayuu verb to be giisu noqonayaa. Number 3 future verb to be. muxuu noqonayaa? will be. Marka 3 qaybood ee waaweyn ee verb to be uu kala baxo mid walba insha Allah waan soo istaagi doonaa. Number 1 oo ah present verb to be ayaan imika taganaa. Present verb to be. Present verb to be intaynaan sii guda gelin muxuu yahay? Ereyga present haddaad maqashid waa wax jooga oo xaadir ah. Verb to be. Verb to be maxaa la yidhaahdaa? waa is iyo am iyo are ayaa verb to be luqadda Ingiriiska la yidhaahdaa. Marka present verb to be waxa uu ka hadlaa waa wax present ah oo jooga oo hadda ah. Tusaale ahaan markaad leedahay anigu waxaan ahay macallin. Macallin waxaa tahay imika right now. Marka jumladaas waxay ka dhigan tahay jumlad present verb to be ah. Okay, present verb to be ga labaan u kala qaybin doonaa waa singular iyo plural. Singular waa maxay? Ereyga singular waa keli oo he iyo she iyo it. Present verb to be ga marka la joogo waxay ku shaqeyn doonaan is, I kelideed bay meel taagan tahay oo waxay ku shaqeyn doontaa am. Pluralka ama kuwa jamac ah, ereyga plural waa jamac. wuxuu noqon doonaa waa I, you, they,
halkaa we baa ka maqan ardayow halkaa we baa ka maqan insha Allah waad ku darsan doontaa I you we they waxay ku shaqayn doonaan are ku celiya pluralka I you they we baa ka dhiman halka we ku darso waxay insha Allah qaataan waa are example tusaale waxaan rabaa af English inaan ku dhaho aniga waxaan ahay professor af English aniga maxaa lagu dhahdaa I maxay qaadan doontaa am maxay noqotay I am af English maxaa philosopher professor lagu dhahdaa professor I am professor waxaan ahay professor xilimaan ahay hadda ayaan ahay you watan you wata you maxay qaadanaysay are way qaadanaysay waxaan odhanay you are teacher adiga waxaa tahay macallin we waxay qaadanaysay are maxay noqotay we are classmates inagu waxaynu nahay isku fasal they maxay qaadanaysay are they are policemen iyagu waa niman booliis ah he muxuu qaadanay is buu qaadanay oo maxay noqotay he is doctor isagu waa maxay waa dhakhtar weey isagu waa dhakhtar okay she is bay qaadanaysay waa she is nurse iyadu waa kalkaaliso it shay baa loo isticmaalayay amba xayawaan oo it is a lion isagu waa libaax halkaa waxay noogu soo idlaaday present verb to be waxaanu geli doonaa past verb to be past verb to be gu markaa muxuu yahay past verb to be waxa uu ka hadlaa waa wax tegay oo lasoo dhaafay verb to be past oo ereyga past haddaan macnayno waa wax lasoo dhaafay okay labaanu kala qaybin doonaa waa singular iyo plural ereyga singular macnihiisa horaan usoo sheegay oo waa keli he she it I dhammaantood waxay ku shaqayn doonaan was plural waa jamac isna horaan u sheegay imikana waan ku celinayaa you they we dhammaantood waxay ku shaqayn doonaan where ayay ku shaqaynayaan example tusaale I af English baan rabaa inaan ku dhaho anigu waxaan ahaa professor English aniga maxaa lagu dhahdaa waa I maxay qaadanaysay was maxaan idhi I was English professor maxaa lagu dhahdaa professor I was professor waxaan ahaa professor xilli lasoo dhaafay marka was-taas waa past verb to be oo waxay caddaynaysaa inuu waxan yahay wax lasoo dhaafay okay you were teacher adigu waxaad ahayd macallin xilima ayaad ahayd xilli hore ayaad ahayd we halka are baa ka dhiman and where baa ka dhiman we were classmates inagu waxaynu ahayn isku fasal baynu ahayn halkaa where baad ku darsani for they were policemen iyagu waxay ahaayeen police niman police ayay ahaayeen xilima ayay ahaayeen waqti hore ahaayeen 5 he was doctor isagu waxa uu ahaa dhakhtar 6 she was nurse iyadu waxay ahayd kalkaaliso xilima ayay ahayd waqti hore oo xilli lasoo dhaafay bay ahayd 7 it was a lion isagu waxa uu ahaa libaax oo it waxa loo isticmaalay shay amba animal marka lion baynu isticmaalay jumladeena halkaas ay ku dhintahay marka verb to be past-ga waxa loo isticmaali doonaa wax la soo dhaafay saa ula soo ardayo okay waxaan galaynaa verb to be future isna muxuu yahay ereyga future haddaan macnayno waa mustaqbal marka verb to be future waxa uu noqonayaa waa verb to be waa verbyo ka hadla mustaqbalka waxa dhici doona bay ka hadlaan marka singularka iyo pluralkeenuba hal mid buu noqon doonaa oo dhammaan todobada pronoun waxay qaadan doonaan will be I you we they he she iyo it dhammaantood waxay qaadan doonaan will be example I waatan I maxay qaadanaysay will be maxaan raacinay I will be professor waxaan noqon doonaa professor xilima mustaqbalka you will be teacher waxaad noqon doontaa macallin we will be classmates waxaanu noqon doonaa isku fasal they will be policeman
waxay noqon doonaa niman booliisa. He will be doctor. waxa uu noqon doonaa dhakhtar. He will be nurse. waxay noqon doontaa kalkaaliso. It will be a lion. waxa uu noqon doonaa libaax. marka la joogo verb to be future-ka dhammaan 7 pronoun waxa ay ku shaqayn doonaan will be oo I oo ah ta ugu horeysa iyo it oo ah ta ugu dambaysa dhammaantoodba waxay ku shaqayn doonaan will be. waxaa halkaa inoogu idlaaday 3 verb to be ee aynu sharaxnay. waxaan rajeynayaa ardaydu in ay si fiican oo qurux badan ay u fahmeen. Okay, haddii la fahmay waxaan isoo gudagelaynaa cashirkeena waa classwork. online-kan iyo sharaxaadan dhexdiisaan kaga shaqeynana convert into past and future. waxaad u bedeshaa jumladahan halkan inoogu qoran waxaad u bedelaysaa past and future, kuwa xilli lasoo dhaafay ah iyo kuwa mustaqbalka dhici doona ayaad u bedelaysaa. Okay, number 2, I am here. halkan baan joogaa bay noqonaysaa Soomaali ahaan. Okay, waa present, waa wax hadda jooga. marka jumladan si aynu past uga dhigno maxaan sameynaa? isku day arday inaad ka jawaabtid 1 minute kadib aniga ayaa ka jawaabi doona. isku day marka. Okay, jumladaas si ay past u noqoto waxay noqon doontaa I was here. waxa aan joogay halkan. si aynu future uga dhignana waxay noqon doontaa I will be here. waxa aan joogi doonaa halkan. future-ki waa kan I waxay qaadanaysaa will be. jumlada labaad you were fine. waad fiicnayd. You were fine. waad fiicnayd. Okay, future waxay noqon doontaa you will be fine. waad fiicnaan doontaa. jumlada saddexaad oo ah we are happy. waanu faraxsanahay. haddii aynu past ka dhigno waxay noqonaysaa we were happy. waanu faraxsanayn. haddii aynu mustaqbal mid noqon doontaa aynu ka dhignana we will be happy. waanu faraxsanaan doonaa. halka arday will be bay noqon doontaa si ay future u noqoto. oo cashirka waan in yar ka hor sharaxay future-ku wuxuu caan ku yahay will be. Okay, sii socdaa markaa. They are new student. iyagu waa arday cusub. waa present, waa wax hadda jooga. sidee baynu af English ugu dhihi karnaa iyagu waxay ay ahaayeen arday cusub? waxaynu bedeli doonaa halka arta ah oo waxaynu ka dhigi doonaa were. waxay noqon doontaa they were new student. waxa ay ahaayeen arday cusub. si aynu isla jumlada uga dhigno future waxaan u baahanay haddana halka arta inaynu ka bedelno in will be ka dhigno. waxay noqonaysaa they will be new student. waxa ay noqon doonaan arday cusub. laakiin hadda ma aha. Okay, jumlada ah he is doctor iyo she is a housewife iyo it is a mango. saddexdaa jumladood idinka ayaan idin daayay. waxaan ka codsanayaa ardayda qaaliga ah in ay qaybta commentiga saddexdaa su'aalood kaga soo shaqeeyaan. He is doctor. isagu waa dhakhtar. pastina ka dhig, future-na ka dhig. She is housewife. iyadu waa guri joog oo waa xaas guriga joogta. housewife waa present oo is baa ku jirta. marka past iyo future ka soo dhig. Okay, it is a mango. waa mango, waa cambe baad leedahay. marka uu ahaa iyo uu noqon doonaa iyadna ka soo dhig oo qaybta commentiga nugula wadaag. Okay, cashirkeena uu sii socon doonaa formation of verb to be. waxaynu formation iyo warbixin ka qaadan doonaa verb to be. Okay, jumlad walba waxay u qaybsami doontaa 3 qaybood bay jumlad walba u qaybsami doontaa. waatan waa statement. jumlad walba waxay u qaybsami doontaa 3 qaybood oo kala ah statement, negative, question iyo negative with question. statement maxay tahay marka? statement waa jumlad saafi ah oo nadiif ah oo wax cilad ah ayna ku jirin. negative waa diidmo, waa tu aad wax diidaysid. waa jumlad diidma ay ku jirto oo not ay ku jirto. question waa jumlad ay su'aali ku jirto. negative with question intaa waxaa loo soo gaabay negative kuyudana question. marka waxay noqonaysaa diidmo iyo su'aal isku jira. Okay,
جملتين waxay ahayd I was policeman anigu waxaan ahaa nin booliis ah sidee baad afgarish ugu dhihi kartaa anigu ma ahayn nin booliis ah wadiidasa negative wadiidasa marka ayda waad soo qaadan was tawana waad soo qaadan laakiin halka was iyo booliista u dhaxaysa not baad gelin doontaa oo waa I was not policeman anigu ma ahayn nin booliis ah wadiidantahay not baa ku jirta okay question si aad uga dhigtid jumladaada oo iyadna su'aal ah waxaad u baahan tahay inaad isweydaarisid ood was halkan keensatid ayadana halkaad keensatid oo maxay noqonaysaa was I policeman miyaanan ahayn nin booliis ah okay negative with question oo idma iyo su'aal isku jirta iyadna waxaad u baahan tahay question teen waxay ku bilaabmataa was baad soo qaadanaysaa halka negative baa inoogu jirta negative maxay caan ku tahay not na soo qaado jumlada inteeda kale markaas sideeda caadiga ku soo qaado oo maxay noqotay was not I policeman miyaanan ahayn nin booliis ah jumlada koowaad waxay ka dhigan tahay waxaan ahaa booliis aanan ahayn booliis miyaanan ahayn booliis okay jumladeena kalena soo fiiri statement I will be policeman battery waxaan noqon doonaa nin booliis ah ay way jumladaada koowaad waa saafi wax diidmaa kuma jirto wax su'aali kuma jirto okay negative si aad diidmaa uga dhigtid maxay noqon doontaa anigii ardayo hore u soo sheegay halka not baad ku darsan doontaa I will not policeman noqon doono nin booliis okay question tama kala joogo halka wilta shal bay noqon doontaa oo ay baa sababasa maadaama halkaas ay tahay I shall be ku shaqeyn doontaa questionta I iyo we shall be ku shaqeyn doonaan oo shall I be a policeman miyaan noqon doonaa police negative with question markay tahay want maxaa loo soo gaabiyey waa will not isku jira weeye waa will not I policeman miyaan noqon doonin policeman okay classwork kuwan qaybta commentiga lagaga soo shaqeynaya insha Allah ilaahay nafteena oo daayo we were classmates jumladaas waa statement negative keedaad qori question teedaad qori negative with question teedana waad qori he was and she was heroine iyadna waad soo qori heroine iyadu waxay ahayd haliyad bay ahayd okay negative keedaad qori question negative with question sidoo kale number 3 iyadna it is a cat waad qori I will be okay waad qori we were at home iyadna waad qori doontaa okay weli casharkeeni waa inoo sii socdaa have and has maxay yihiin maxay naga caawinayaan it is used waxaa loo isticmaalaa for possession sifa lahaansho ayaa loo isticmaalaa have and has oo sideeya marka aad rabtid inaad tilmaamtid shay aad adigu leedahay ayaa waxaad isticmaali doontaa have and has tusaale ahaan markaad leedahay buugan aniga ayaa iska leh qalinkan aniga ayaa iska leh waxaad isticmaali doontaa have and has ka definitionka have and has waa it is used waxaa loo isticmaalaa for possession sifa lahaansho have and has laba qaybood baan u qaybinaynaa waa plural iyo singular okay plural muxuu yahay marka waa I you we they waxay ku shaqeyn doonaan have he she it ina waxay ku shaqeyn doontaa has okay example English baad rabtaa inaad ku dhahdid waxa aan haystaa gaari English aniga maxaa lagu dhahdaa I maxay qaadanaysay have maxay noqotay I have English gaari maxaa lagu dhahdaa a car maxay isku noqotay I have a car okay number 2 you have a money waxa aad haysataa maxay lacag
3 we have a big house waxaanu haysanaa guri weyn xilima ayaanu haysanaa guriga weyn waxaanu haysanaa right now eega haddaanu haysanaa we have brothers waxay haystaan wiilal walaala ah bay haystaan okay she has an umbrella waxa ay haysataa dallad amba dallaayad bay haysataa he has a book waxa uu haystaa book buu haystaa 7 it has a tail waxa ay haysataa tail bay haysataa okay waxaan rajeynayaa ardaydu in ay fahmeen waxaa loo isticmaalayaa markaa half waxaa loo isticmaalayaa sifa lahaansho waa waxaad haysatid shaygaas oo aad haysatid right now ayaad u isticmaalaysaa okay past of have and has waxaan ku soo baray sida afkiis loogu dhaho waxa aan haystaa lacag gaadhi iyo dhammaan wax walba aad sheegi karaysid oo aad haysatid sidee baad afkiis ugu dhigi kartaa waxa aan haystay aad past uga dhigi kartaa haddii aad rabtid inaad baratid casharkan ila soco waa past of have and has past good way plural iyo singular oo isku jira way waa I you we they he she it dhammaantood waxay qaadan doonaan had ay ku shaqeynayaan example tusaale waxaad rabtaa fikrish inaad ku dhahdid anigu waxaan haystay gaari tii hore waxay ahayd anigu waxa aan haystaa gaari oo imika ayaan haystaa waata anigu waxaan haystaa gaari waytna oo baan gaariga haystaa sidee baad fikrish ugu dhihi anigu waxa aan haystay had baad isticmaali doontaa okay I had a car waxaan haystay gaari you had a money waxaad haysatay lacag we had a big house waxaanu haysanay guri weyn we had brothers waxay haysteen wiilal walaala ah bay haysteen laakiin hadda ma haystaan she had an umbrella waxay haysatay dallad amba dallaayad he had a book waxa uu haystay book laakiin hadda ma haysto buuga it had a tail waxa ay lahayd oo ay haysatay amba sign a tail waa dabada saynta wey badi xoolaha iyo xayawaanada duurjoogta ah baa badi laga helaa okay future of have and has waxaan ku soo baray sida fikrish ku dhihi lahayd waxaan haystaa gaari iyo waxaan haystay gaari sidee baad fikrish ugu dhihi waxa aan haysan doona gaari marka future kan baa ka caawinaya future ka labaan u kala qaybinana waa singular iyo plural I you we iyo they ay qaadan doonaan will have singular kuna waa kan he iyo she iyo it igana waxay qaadan doonaan will has example okay I will have a car waxaan haysan doonaa gaari you will have a money waxaad haysan doontaa lacag you will have a big house waxaanu haysan doonaa guri weyn you will have brothers waxay haysan doonaan wiilal walaala ah she will have an umbrella waxay haysan doontaa dallaayad haddii aad arday ula socotay ka hor waxaan soo sheegay she marka la joogo future-ka in ay qaadan doonto will has waatan she waxay qaadan doontaa will has halkan casharkeenana waxay noogu qoran oo example ah she inay la socoto will have she iyo he iyo it haddii will have la raaciyo dhib male wax micno ah oo ay ka bedeli kartaa ma jirto jumladaasina qalad ma noqon karto will has-na waad dhihi kartaa will have-na waad dhihi kartaa labadaba dhib male he will has a book buu haysan doonaa it will has a tail okay waxaan rajeynayaa in la fahmay casharadaas waxaa halkaa inoogu soo dhammaaday half waxa ay tahay past of have and has iyo sidoo kale future of have and has okay class work kale ayaa halkaa inoogu jira convert waxaad u bedeshaa into past and future past iyo future u bedel I have a car waxa weeye macnaheedu gaari ayaan haystaa
sidee baad af English ugu dhihi gaari ayaan haystay halka halfta baad had ka dhigi doontaa oo maxay noqonaysaa I had a car waxaan haystay gaari marka 2 ilaa 7 inta ardayda class work baan uga dhigi doonaa ka soo shaqeeyaan oo qaybta commentiga kaga soo shaqeeyaan you have a money we have a time they have a cars she has new brand of car she has maybe it has a tail ka soo shaqeeyaan ardaydu marka okay was subject plus verb plus object Soomaali ku noqonaysa ficil sameeye oo loo geeyo ficilkii iyo ficilka halkuu ku dhacay oo objectiga okay subjectigu waa maxay subject hadaad maqashid waa is the doer of the action ficilka sameynaya ayaa la yidhahdaa subject waa maxay is the doer of the action ficil sameeyaha ayaa la yidhahdaa subject example tusaale I play football anigu waxaan ciyaarayaa kubad ayaa ciyaaraya waa I oo waa aniga marka anigu maxaan ahay ficil sameeye ficilkan ciyaarista ah ee la ciyaaraya kubadda I oo aniga ah ayaa sameynaya ardayow si fiican ugu fiirso dhammaan subjectiga waan ku calaamadiyey oo waa waxa halkaa ku wada qoran oo greenka aan kugu wada qoray yellowka waa wadayaga you know me adigu anigu wada taqaanaa adigu waxa tahay ficil sameeyaha we learn English anagu waxaanu baranaa Englishka yaa baranaya we anagaa baranana markaana waxaanu nahay ficil sameeyaasha they go to school iyagu waxa ay tagaan schoolka yaa tagaya iyagu marka waa ficil sameeya he loves me isagu uu jecel yahay aniga iyo adiga ku jecel isaga marka isagu waa ficil sameeyaha he respects me iyadu way xishmaysaa aniga iyo adiga ku xishmaynayo ficilka sameynaya she oo ah iyada marka subjectigu waa the doer of the action way okay verb waa maxay marka is the action being done ficilka la sameynayo ayaa la yidhaahdaa verb I play football anigu waxaan ciyaaraa kubad ciyaaritaanka iyo camalka iyo verbka waxa aan qabanayo ayaa la yidhaahdaa verb oo waa play you know me adigu anigu wada taqaanaa aqaanshahaas ayaa ah ficilka la sameynayo marka waa now we learn English anagu waxaanu baranaa English barashadaas waa camalka iyo actionka la sameynayo they go to school iyagu waxay tagaan iskuulka marka ereyga go wuxuu noqon doonaa verbka ku jira jumlada he loves me loves wuxuu noqon doonaa verbka ku jira jumlada she respects me iyadu way xishmaysaa aniga marka xishmadu waxay noqon doontaa verbka iyo camalka la sameeyo sidaa daraadeed ereyga respect waa verb okay objectigu muxuu yahay marka is the receiver of the action halka uu ficilku ku dhacayo ayaa la yiraahdaa object halka uu ficilku ku dhacayo ayaa waxa la yiraahdaa object example tusaale okay I play football anigu waxaan ciyaaraa kubadda I oo waa aniga subjectigii baan ahay oo ficilkii baan sameynaya waa verb waa play marka verbkan halku ku dhacayo is the receiver of the action waa halku ficilku ku dhacayo ayaa la yiraahdaa object oo waa football dhammaan calaamada yellowga waxa uu raacsan yahay waa wada object jumlada halka ugu horeysa waa subject dhexda ku jirta waa verbka ugu dambeysana waa object you know me marka jumladaas objectigeedu waa me we learn English they go to school iyagu school bay tagaan marka objectiga ku jira waa school he loves me objectiga ku jira waa me he respects me objectiga ku jira waa ereyga me waxaan rajeynayaa ardaydu inay fahmeen okay subject subjectigii waa kan objectigiina waa kan okay I maxay noqon doontaa I markay ficil sameeyaa tahay waa subject oo jumlada halka hore ka maraysaa objectiguna jumlada halka dambe ka mari doonaa laakiin macnaha waa isku mid
I me you ereyga you isma bedelin we us they them he him she her it dhammaan macno waa isku wada mid I waa aniga me waa aniga you adiga we inaga us inaga they iyaga them iyaga he isaga him isaga she iyada her iyada it waa shay amba xayawaan baa loo isticmaali doonaa it isna shay amba xayawaan baa loo isticmaali doonaa okay subjectigu muxuu yahay subjectigu waa study of the action waana hore usoo sheegay ardayo ficil sameeyihii oo halka horun bay intani maraan doodan pronoun objectiguna waa is the receiver of the action halkuu ficilku ku dhacayo igna waxay maraan halka dambe okay ardayay waxaanu soo gaarnay guntii iyo gabagabadii oo casharadeenii English basic grammar ka ahaa are over way dhamaadeen waxaan rajeynayaa dhammaan ardayda qaaliga ah ee wax ka barata akademiyada aqoon bula Institute of Brave of Language inay casharka si qurux badan u fahmeen ardayow bilaadan baan nahay waan ka fikirnaa waxbaan naga qaldami karo waxaan apologize ka bixin doonaa inta casharkaan bixinayay wixii gafaf ah amba errors ah ee naga dhacay haddii aad casharka fahmi weydo amba ay wax kugu adkaadaan nagula wadaag qaybta commentiga waxaan isku dayi doonaa sida ugu macquulsan inaan uga jawaabno aad baad mahadsantihiin wabillahi tawfiiq